kasoo qayb qaado dib u dhiska dugsigan oo ah meel lagu soo saaro arday xafidsan kalaamka Alle. Dugsigani waxa uu u baahan yahay dib u dhis ballaaran oo lagu sameeyo. Ardayda halkani ku akhrisata waxa ay dhib ku qabaan kulaylka qorraxda iyo weliba roobka, sababtoo ah dhismaha dugsiga ayaa ah mid qadiimi ah oo aan dugaal fiican lahayn. Tirada ardayda halkan dhigato ayaa ah kuwa aad uga fara badan baaxadda dugsiga, taasi oo keenayso inuu dugsigu noqdo mid aad u ciriiri ah. Fadlan walaal ka soo qayb qaado dhismaha dugsigan oo ku soo sadaqayso waxa aad u awoodo adigoo soo marinayo telephone numberka shaashada kaga muuqda. عليكم تعالى ورحمة الله وبركاته. أدبر يسأل عن ولا الله مسلمين تقدر في جد أنت تقولون وأنا ما أنت خصوصا دكتور القرآن كوي الله مجال جالس جالها حافظ ضبط السيارة ما أنت بيشس أم كل ناي مدير كدوسية يكحين كيسي يسوق على أرض القرآن كبيش كبرتها قبضة هذا خصوصا أنا قبضة قرآن كأرض الوبرة من جالها أنا عرفت قبل هاي ويجدنا خطوة أنا ماشي هالك إله الوفا فيه مركب واحد شيء ولا الله مسلمين تقدر سبجتان ماشي waxaan ka rabaa si walaaltinimo ahaan muslim ahaan aad u garabsagtaan oo warqabtaan waa goob aarkasan kamoore iyo tiirar la isku dhisay marka waxaan sheegaynaa meel ka joogtaan qofkii ka tabargeysan kan ama qofkii aan qalmeyn kan ama qofkii ajraan ka qayb qaato si toos ah ha u soo tigsado halma oo saxiiro madirka dugsiga quraanka meesha goobta halkii lagu farqanayo kulli telefoon numberka shaashada ku soo dadka muslimiinta meel walba ay joogaan. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. meesha hadda anaga aan joogno waa meel dugsi quraan ah magaalada Gaarisa, gaar ahaan xaafadda la dhaho Buulasagaare. marka dugsigan anagu meesha ku haynaa aniga macalinka kale waa laba fasal, galaaska kale tan galaasna waa xafiis. marka booskan hadda aad u jeedaan oo dugsigu uu ku yaalo waxaa iibiyay ama gaday dadka waalidiinta khayr Allah siiyo ardaydan waalidkooda gaday khayr Allah siiyo. marka booski markay iibiyeen booski inta la gadan kor dugsiga kale ku jiray marka waxaan istusnay bal in dugsiga boos loo gadi karo. booski baa marka lacag baa la aruuriyay, booski waa la gaday. haddana waxaa la tabar badan ma saayaan bal kamoor aan ku bilaawno. jeedaan waxaan waa awoor soo arkaysaan. marka dugsiga quraankan waqti ama muddo intee leeg buu meesha ku dhisan yahay oo ardaan ay shaqeynaysa ama ardaan arday wax lagu baraa dhalinyarada carruurta waxaa lagu baray muddo adiga 7 sano inuu shaqeynaya. 7 sano horaan wax noo sheegtay inay meesha ay kala ahayd markii dambana walaalaha muslimiinta oo u badan yihiin carruurta hadda quraanka la barayo waalidkooda ayaa kaalin weyn geystay. khayr Allah siiyo ajirna xasan Allah ka siiyo. amiin. goobta halkii Ilaahay lagu faafiyo meelaha ugu ajir badan oo lagu xisaabtamo. marka hadda intii arkayda ka baxay inta imaateen ma jirtaa ama qof siyaasi ah ama dad kale oo meel ama dalka ama dibadda isku maqan ma jiraan oo kaalin weyn ka geystay ama wax idinku caawiyeen? niyo waxaana loo hadda banaanka ku taal arkaysaan musqusha iyo taangiga meesha saaran nin dibadda jira lacag soo dirsaday lagu dhisay. ninka khayr Allah siiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala meesha wax ka soo bixiyo wax ka barakaysa Allah siiyo. ninka anigu ma garanayn maamul Maam Baarlin oo reer Gaarisa ah yaa keentay lacagtii ninkaasana soo dirsaday. musqusha dugsiga musqul la'aan yahay baan ogahay bay u dhamaamada khayr Allah siiyo. wali waa maamo arday ah oo duceeyna maamada anagoo jooha maamadan dariska ah xaafadda ilmihi isticmaalayaan oo yaaban bay noo imaatay. Ilaahay baa noo keenay maamada hataa anagu ma garanayn dugsigan ku baranay. marka waxa nin dibadda ku jiro oo maqan ya lacagtaas soo dirsaday u dhahday. dadka muslimiinta waxaan ka codsanaynaa ardayda meesha dhigato iyo hadda meesha galaasyaha ku yaala isma laha oo ciriiri gaarsana marka aad bay u kulushahay. haddana waxaan ku jirnaa xilli roobaad baan ku jirnaa. marka meeshan way iska yar tahay in noola waasiciyo baan u baahnaan lahayn. xilli roobaad baa hadda lagu jiraa, xilli roobka imaanay baa hadda lagu jiraa. meeshan waa iska kamoor, xaaladda Ilaahay baa og. marka dadka muslimiinta waxaan ka codsanaynaa Allah barakay meel alla meesha joogaanba marka inay meeshan noo waasiciyaan oo dhagax ay noogu dhisaan baan ka codsanaynaa. adduunka akhradii waqfi hal qof la helayo waqaf ah iyo haddii jamiic muslimiinta ay ka wada qaadanayaan intaba ayaan ku soo dhaweynaynaa. Ilaahayna ha barakay meel alla meesha joogaanba muslimiinta. waanta aad ka taaqo soo xiriirtay sheekha kuna soo dhawaada waa goobtii halkii Ilaahay lagu faafinay. waxaana barnaamijka ku soo dhaweynaa sidaas iyo nabadgelyo aniga iyo Sheekh Cabdi Qaadir.